howlaha nadaafadeed oo uu maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ka bilaabay waaxyaha iyo xaafadaha degmada Xamarweyne ayaa waxa ujeedadu tahay sidii loo soo celin lahaa nadaafada iyo bilicda degmada Xamarweyne waxaana ka qayb qaadanayay maamulka degmada Xamarweyne bulshada ku nool degmada iyo dadweyne kale aad u fara badan waxa howlaha nadaafadeed laga fuliyay qaybo fara badan oo kamid ah degmada Xamarweyne iyadoo ay ka qayb qaadanayeen gaadiidka lagu qaado qashinka waxaana gacan weyn ka geysanayay shirkadda ka shaqeysa howlaha nadaafada ee gobolka Banaadir ee Eco gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Umar Shariif Mayajeek oo ka hadlay goobta ay ka socotay howlaha nadaafadeed ayaa sheegay in bulshada ku nool degmada Xamarweyne ay ka qayb qaataan horumarka degmada iyo soo celinta bilicda degmada Xamarweyne waxaan go'aan ku gaarnay nadaafadii isbuuclaha ahayd inaan ka baabino ee aan ka dhigno joogto maalin kasta in laga shaqeeyo nadaafada bilicda degmada in la soo celiyo shacabka degmada Xamarweyne waxaan ku baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad leerarkii inay shidaan inay nadaafada ka shaqeeyaan inay guryaha hoostiisa iska xaqaan waxaan u baaqaynaa ganacsatada degmada Xamarweyne waa inay u soo istaagaan bilicda soo celinta caasimadana waa degmada Xamarweyne caasimada lagu sheegay waa faras magaaladii caasimada Muqdisho marka waxaan leenahay annaga waxaan maanta ka shaqeynaa nadaafada afarta waaxood xaafadaha meel aan soo marin ma jirto waxaan leeyahay nin kasto muwaadin Soomaali ah waxa laga rabaa hadduu meesha ku arko inuu ka qaado jidka hadduu qashin ku arko inuu ka qaado mudooyinkan ayaa maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxa uu waday dadaalo uu ku soo celinayo bilicda iyo nadaafada degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Muuse Cismaan Abtoow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho